maalmihii la soo dhaafay gruubyadii la sameynayay kacdoonadii muuqday waxay ahaayeen oo u muuqdeen kacdoona siyaasadeed codka bulshada loo gaarsiinaya ama bulshada loogu doodayay una noqonin hab khilaafsan sharciga magaalooyinka la gubo nafyo kale dad ma aragtay aanan dambi lahayn ay ku waxyeeloobaan taas waxay dhaawacaysaa sharafta iyo qiyamka ummadda Soomaalida waxaan uga digaynaa dhalinyarta iyo shacabka deegaankaba in dhacdooyinka la siyaasadeenayo laga digtoonaado xaaladda deegaanka bil walba ama toddobaad walba in la soo saaro inta badan saxaafaddu oo ma bisla shirarka jaraa'id in si xillilaay ugu xisaabtamaan waan u mahadnaqayaa marka hore warbaahinta kala duwan kuwa dawladda iyo kuwa madaxa banaanba mahadnaq kadib maanta waxaan halkan iskugu yeedhnay inaan idinla wadaagno shir jaraa'id oo ku saabsan xaaladda guud ee deegaanku ku sugan yahay saxaafad ahaan waan idinkaga mahadnaqayaa doorka iyo laxjeclada aad ka leedihiin inaad ku garab istaagtaan waxyaabaha danta guud anagoo tixgelinayna afkaarihiina iyo dhaxdhaxaadnimadiina iyo madax banaanidiina haddana doorka dawladdu wuxuu yahay isku wadka warbaahinta kala duwan inay dhaxdhaxaad ka noqdaan afkaaraha marka doorkii aad muujiseen saxaafadda madaxa banaani waan idinkaga mahadnaqayaa inta kadib maalmahan waxa jirtay dhacdo argagax leh oo ka dhacday magaalada Jigjiga dhaqan baan dabcan ka dhiganay dhacdooyinka inaanan u aqbalin in incidentiyada ama dhacdooyinka dhaco wax ku salaysan nolosha aadamaha inay tahay maadaama aanan u aqbalin oo nafteena aanan ka dhaadhicinin qasab bay noqonaysaa inaan dadka ka dabageeno wixii dhacay siday u dhaceen in loo faahfaahiyo dadka mas'uuliyadna naga saaran tahay balse ujeedadan ka leeyahay waxa weeye dhacdooyinka buunbuuninta la siinayo coverage-ka la siinayo ayaa waxa lagu tuhmaa ama lagu riixaa in cid gaar ah ay treat gareynaysa dhacdooyinka inay dhaceen ama ay ogaayeen waxa dhacday maalmihii la soo dhaafay 3 cisho ka hor kufsi ka dhacay magaalada Jigjiga kufsigaasi kulay kufsi argagax leh waha ilmo yar oo saqiira qaangaadhan ahayn ayaa la kufsaday kufsigaasi kulay dhacdooyin ahaan dhacdooyinka argagaxa leh ma aragtay aan ka xunnahay bay kamid tahay dawlad ahaan waxaan u tacsiyeenaynaa qoyskii falkaasi uu ku dhacay argagaxa leh waalidkii eheladii iyo dhammaan shacabka deegaanka Soomaalida oo aan anagu ka mid nahay maadaama ayna nahayn dhacdooyin caynkaas oo kala ah inay ka dhacaan caasimadeena wax cudur daarana aan u sameeyay in faldambiyada noocaas ay dhacaan faldambiyadkii dhacay hay'adaha amnigu markiiba gurmad bay sameeyeen waxa lagu guuleystay in la qabto dadkii lagu tuhunsanaa inay falka ka dambeeyeen waa guul laftirkeedu in qof eedaysana ah inta uu ka baxsan lahaa oo aad ka goobi lahayd bulshada kale dhaxdeeda inaad markaba xakamaysid oo qabatid eedaysanihii wax wanaagsan weeyaan taasoo sahli doonto in laga qaado tallaabada uu sharcigu dhigayo in qofka falkaas geysto oo mutaysto waliba adag hadii alla idmo hay'adaha amniga gacanta ay ku hayaan baaritaankana marka uu dhamaado waxa loo soo bandhigi doonaa falkaas sidoo ku dhacay cidii geysatay iyo sida ay ma aragtay u wajahaysa sharciga marka uu dhamaado baaritaanku wax bulshada loo soo bandhigay noqon doonta kadib falkaas habkii looga xumaaday dadku xaq bay u leeyihiin in laga xumaado laga gilgisho falalkaas oo kale ay dhacaan falal waxa ka horeeyay dil ah kuwa toogasho ah shacabka deegaanku ay iska kaashadeen falalkaas oo kale inay soo noqdeen xukuumad ahaan waxaan raalli ka nahay in la dhiso qabka bulshada in la dhiso hanka bulshada oo aynan u dulqaadanin wixii aynan geyn
bulshadu waxaynan geeyin markaan leenahay dhacdooyinku iyadoo sidoodaba dambiga la geysanayo meelaha lagu badan yahay magaalooyinka dambiyada ka dhaco argagaxay leeyihiin mar walba haddana wixii bulsho ahaanna taabanayo sumcadeena iyo sharafkeena iyo qiyamkeena taabanaya in bulshada deegaanku dareen ay ka muujiyaan wax wanaagsan iyadoo ay tahay waxaan faraynaa dhammaan bulshooyinka deegaanka Soomaalida oo ay lafdhabar u yihiin dhalinyarta deegaanka Soomaalida in aaskeenu uu noqdo sharciga waxaan ku aaragoosanayno waxaan ku ciilbaxayno inuu noqdo xayndaabka sharciga haddii dhacdooyinka aan ugu turjunno habka ay u dhacaan in lagu xumeeyo dad in lagu carqaladeeyo xasiloonideennii aan galno qalalaaso markaaba aan u diyaar garowno inaan laamiyada xidhno shilal ridno magaalooyinka la gubo nafyo kale dad ma aragtay aanan dambi lahayn ay ku waxyeeloobaan taas waxay dhaawacaysaa sharafta iyo qiyamka ummadda Soomaalida dhalinyar ahaan markaa habka codka bulshada loo gaarsiinayo ama bulshada loogu doodayay una noqonin hab khilaafsan sharciga maalmihii la soo dhaafay gruubyadii la sameeyay kacdoonadii muuqday waxay ahaayeen oo u muuqdeen kacdoona siyaasadeed laakiin aanan u turaynin shacabka deegaanka aanan qiimeynaynin qiyamka iyo sharafta shacabka deegaanka taa markaan leenahay in xuquuq la helo iyo cadaalad la helo waxay ku xidhan tahay in la ilaaliyo sharciga iyo sugnaanshaha iyo ku dhaqanka sharciga cidii dambiile ah cid qarinaysa ama u cudur daaraysa ma jirto waxaan diyaar u nahay in aan ku hogaaminno shacabka sidaan horeyba u soo sheegay sharaftooda iyo qiyamkooda iyo damiirkooda iyagoo loo ilaalinayo inaanan laga gudbin in la jibiyo sharciga qalalaasan la abuuro aanan lagu dhawaaqin in dad la dilo shacabka deegaanku hagardaamooyin badan way soo mareen oo ugu dambeysay dhacdadii August 4 ee deegaanka Soomaalida ka dhacday dhacdadaasi qalalaasihii iyo sawaxankii ka dhacay magaalada Jigjiga iyo deegaanka intiisa kalaba mid ummadda Soomaalida deegaanka Soomaalida sharafteeda kor u qaaday ma mid daawacday maanta oo nagu taal boog nagu taala way marka waxaan uga digaynaa dhalinyarta iyo shacabka deegaankaba in dhacdooyinka la siyaasadeenayo laga digtoonaado wixii dhacda in looga dambeeyo dawladda lagula xisaabtamo dawladdu habka ay u wajahdo faldambiyeedyada ka dhaca marka ku xidhnow lana wadaaga asxaabtaada faalladaadu waa muhiim Dagaaran Media waa saaxiibka dadweynaha